warbaahinta Somali Nation oo maanta la hadlayay wasiir ku-xigeenka macdanta iyo beeyada xukuumadda maamulka Jubaland ayaa waxa uu sheegay in maalinta berito ay taariikhda ku beegan tahay 10 bisha uu si rasmi uga furmi doono magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose shir loogu talagalay inay ka soo qayb galaan siyaasiyiinta aqoon-yahanada iyo waxgaradka beesha shade oo lagu soo afjari doono khilaafkii u dhaxeeyay maamulka Jubaland iyo beesha shade waxa uu wasiir ku-xigeenku sheegay cid waliba oo sheeganaysa inay wax ka maqan tahay kana qaylinaysa warbaahinta inay ka soo qayb galaan maalinta berito shirkaasi ay ku lahayd beesha shade dowlad goboleedka Jubaland aad nooguma fiicna inagoo dawlad sheeganayn in qabiilooyin tilmaana ama afka ku dhufana laakiin way nala gashay waxaan u raadsanaynaa cudurdaar inaan arintaas noqolo sameeyo in alla intii danaynaysay ee intii qaylinaysay ee intii shirka rabtay ee intii cilaaminaysay ee intii lahayd waxba naga maqan waxay ugu baaqayaan xildhibaanada beesha iyo golahooda xukuumadda waxay ku baaqayaan 10 bisha February oo berita shirki inuu furmayo cidii aan ka soo qayb galin qaaylidanba uma taala waxba naga maqan uma taala waxba aan tabanayna uma taala waxaan cadeynaynaa annagoo dowlad goboleedka Jubaland xildhibaanadiisi iyo xubnihiisi golaha wasiiradaba shirki inuu furan yahay biri oo si waafi u furan yahay ilaa heer madaxweyne ilaa Jubaland gees ka gees loo diyaar garoobay shirkaas qaabkii loo soo dhaweyn lahay iyo martigelintiisa ama xaq amni ha noqoto ama xaq dejineed ha noqoto oo hal dejiyo ama xaq wada hadal ha noqoto baa furan waxaan marka codsanaynaa si xushmad leh oo qadirin leh oo aad iyo aad aan annagana soo dhaweyn u siinayn in loo yimaado shirkii berito waa furmaya hadii ilaa yiraahdeen shirkan dhaxmaraya beesha shade iyo maamulka Jubaland oo tiro ka 3 jeer baaqday ayaa waxay maanta maamulka Jubaland si rasmi ah u cadeeyeen in maalinta berito uu si rasmi ah shirkaasi u daafurmi doono Abduqaadir Cabdirasaaq Soof Abduqaadir Jijile warbaahinta Somali Nation Kismaayo.